maanta ay tahay bishii December 30 sanadku uu yahay 2025 waxa sharaf weyn noo ah annagoo ay garbahayga taagan yihiin 20kii urur ee u tartamay doorashadii golaha deegaanka 25kii bishan in maanta aan shirki noo soo dhamaaday oo aan maanta shaacinay kuraasta isee u kala heleen kuraasta guud ee la helay urur walba degmo kasta kuraasta uu ka helay waxa guul ah in doorashada ay nagu dhamaato nabad 52 sano kadib doorashadii ka dhacday gobolka Banaadir inay ku dhamaato guul iyo nabadgelyo iyo dhibaato la'aan ma haddaas waxa iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala in abuurtay waxa guul weyn ah maanta geedigii aan soo bilownay horaantii sanadka oo aan ka soo bilownay diiwaangelinta ururada oo ku xijinay diiwaangelinta dadweynaha oo ku xijinay inaanu kaararkii daabacno oo ku xijinay kaararkii inaan bixino oo Ilaahay noo fududeeyay in 25 bishan aan qabanay in dadkii Soomaaliyeed ee deganaa Banaadir gobolka Banaadir inay u dareeraan cod bixin si nabada in maanta oo bisha 30 ay tahay sanadkuna uu yahay 2025 inaanu shaacino kuraastii 390 kursi ahayd ee 16 degmo gobolka Banaadir ahaa in urur walba uu ku qancay 100% kuraastu ka helay iyo natiijadii dhammaan kuraastii iyada ahayd waxa Ilaahay mahadiis ah in albaabkaas Soomaaliya maanta ee gobolka Banaadir ka furmay inuu yahay albaab jididal albaab u baahan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala in abuurtay lagu mahadiyo inay taa guul ummadda Soomaaliyeed soo hoyatay in dalkan Soomaaliya maanta uu diyaar u yahay dadka Soomaaliyeed inay aadaan doorasho qof iyo cod meel bixiyeen wax badan baa dadku ay tuhun qabeen laakiin maanta alxamdulillah rabbil caalamiin 20 urur ee sharafta leh ee dhiigoodii iyo dheecaankoodii u horay oo dhaqaalihii bixiyay oo safety iyo amniga iyadoo mar walba cabsi jirta albaabada garaacahay campaign sameeyay oo aragteen 6 bilood ugu dambeysay inay albaabada iyo campaign ku jireen volunteers sameysteen ma haddaas faraha badan waxa iska ururada Soomaaliyeed gaar ahaan 20 kan urur oo runtii muujiyay bisayl siyaasadeed dhaqaalahooda ayadoo u yar yahay ayadoo dadka fahamka siyaasadeed qaba ay yar yihiin haddana bilaabay inay 100% u dhabar adeegaan inay dadka Soomaaliyeed fahamsiiyaan inay tahay xilligii la joogay inay dadkooda doortaan si gaar ah ugu mahadina thank you very much